dhaqaalaha shidaalka sida uu u shaqeeyo uu ka duwan yahay meel hebla anaga shidaal loogama yimaado meel heblo shidaal looga yimaada isma qosayso adiga haddii maanta uu shidaal hal dal uu kaaga yimaado tusaale ahaan haddii ay soomaaliya maanta etoobiya hadduu shidaal uga yimaado oo next dhoorka ah soomaalida dadka jooga hargeysa dadka jooga haddii uu shidaalkooda uu ka yimaado jigjiga oo shidaalka maraykanka iyo kanada uu kaco uu kacayo sababtoo ah waxaa weeye suuqa shidaalka waa hal suuq waa xataa suuqa madow ee loo yaqaano suuqa madow ee shidaalada dalkan waqooyiga Kooriya iyo Iran iyo kulli ay iibsadaan suuqa madow baa loo yaqaana way ka warhayaan shirkadaha waaweyn Exxon Mobil kaas ayaa saameyn ku yeelanaysa shidaalka jigjiga intuu ka tago hargeysa aaday saameyn yar umsina sadraadeed waxaa la yiraahdaa madaxweyne Donald Trump markuu arrinta ka hadlayay waxay muujinaysay sida uu doonayay inuu caqliga dadka Mareykanka ugu ciyaaro isagu boqol uu hubaa uu og yahay wuxuu ka hadlayay khalad tahay markuu dhahayay annaga nama khusayso arrinta gacanka hormuus nama khusayso wuu og yahay dadka shidaalka u taliya waayo shirkadda shidaalka ka soo saarta Mareykanka waxay ku dheeri tirtaa shidaalka kale ee ay intay Sacuudiga ka qaado Japan u iibso waxa laga yaabaa shirkadda Mareykanka ee ayadu shidaal ka soo saarta dalka Mareykanka gudihiisa gobolka North Dakota kale iska dhig at the same time heshiisyada iyo controlka ka wada gobolka Sharqiya Saudi Arabia waxay isku si ay suuqa u jaangoysaa suuqa Japan magaalada Tokyo suuqa waxa lagu gaday iyo magaalada New York inta isku jiraan aragtid isku si bay u jaangoonaysaa sababta waxa weeye waxoo dhan data lagu maamulaya macnaheedu marka lama oran karo Tokyo shidaal jaban baa laga helayaa ama shidaalka lagu qaaliyeynaya Mareykanka waa la raaxaysanaya ma dhacdo arrintaas sidoo ma dhacdo iska daa wax kale wadamada khaliijka ee shidaalka ayagu soo saara tuumbooyinkooda meelaha qaarkood ay heer ah ay gaarsiisan yihiin gobolada qaarkood meesha cajabku ay ku taalo iyo meesha shidaalka laga saaraa ay halka kilomitir isku jiraan baa shidaalku wuxuu ku darsamay oo qaaliyo pointiga ku darsamay arrimahaas oo dhan markaa horta dagaalka waxyaalaha aan la filaynin ee uu keenay ee ka mid sida daraadeedna waxyaalaha kale oo dhibaaxooyinka maaha shidaalka kaliya waxaa kaloo yimid sicir kii dhinaca dahabka oo khalkhalay dhinaca doolarka oo khalkhalay iyo dhinaca wix loo yaqaanay dominance-ga waxa doolarku isaga dominate gareynayay dhaqaalaha lacagta adduunka currencies-ka adduunka doolarka dominate gareynayay sababtu dominate gareynka ereyga waxa af Soomaaliya ha wuxuu noqonayaa isaga ayaa madaxa kaga fadhiyay isaga ayaa hogaaminayay doolarka lacagta doolarka ayaa lagu khasbanaa in shidaalka dhan lagu gato taasna su'aala ka yimid oo lacagtan loo yaqaano yaanka ee dalka Shiinaha Mareykankuna loogu dhawaaqo marka la joogana waanka ayaa hadeerto dowladda Iran ay miiska soo saartay oo lacagteeda ay ku iibsatay waana taata keentay in golaha amaanka qaramada midoobay wixii ka dhacay in golaha amaanka qaramada midoobay codka didmada qiyaxanta fiito Shiinaha iyo dalka Russia ay dul saareen ta kale meesha ka dhacday waxa weeye Ruushku dhaqaalihiisa marka loo eego halka wadamada qaarkood ay ka baaba'ayeen isagu kobca ma maqashay nin dhintay baa leeyahay nin nool baa ka faa'iida nin dhintay nin nool baa ka faa'iida ama maxaa la yiri walba nin maqan amaanti waa nin jooga dhaliish bay Soomaalidu ku maamaada Ruushku shidaalkiisa suuqa galay ana qotaynta intii laga qaaday millions of marti Aprils ayuu iibiyey oo marti sheegeen inta super meal oo maxay tahay fusto shidaal ayuu iibiyey pennies of dollars ayuu ka helay dowladaha reer Yurubka oo iyagu si gaar ah assessment ugu sameeyay lacagta Ruushku uu sameeyay lixdii asbuuc ee dagaalkaas uu soconayay waxay ku tilmaameen in ay gaadhayso ilaa 8 ilaa 11 billion at the same time Mareykanku billion dollars ayuu lumiyay lacagtaas Ruushku maxay ku iibsan doonaan waxay ku iibsan doonaan waxyaalaha ay ugu baahan yihiin teknolojiyada dagaalka Ukraine ee ku wadaan sida laajiligeedna dhinacaasna dad baa ka faa'iiday lama wada khasaarin dhinacyada kalena Iran ayaa kamid ah dadka faa'iiday lacagta soo gashay Iran lacagta ka baxday lacagta soo gashay tuma jibar lacagta soo gashay ka badan sababtoo ah Mareykankii laftiisa ay hayeen ayaa cunaqabatayntii ka qaaday oo ka khafifiyay shidaalka si shidaalkooda suuqa u soo sababta Mareykanku saa u sameeyay waxa la oran karaa Iran buu danayay waa maya waa mid kamid ah xeeladaha uu Trump isticmaalay laakiin markaas dhinac laga eego waa arrin fiican marka dhinac laga eegana waa arrin foolxu marka dhinac laga eego waa arrin fiican oo de suuqyada adduunka si loo ilaaliyo oo suuqa loo xasriyo oo suuqa dhan inuu dumo ku sigto suuqa hadda already suuqa dhaawac baa gaaray damage ayaa gaaray laakiinse inuu dumo ku sigto
in sidaas marka laga eego way fiicnayd, si kale iyagana way xumayd. Marka mawduucaas iyo assessmentigaas marka laga yimaado, waxaa jira in ay arrimo waaweyn oo dhinaca haddaba ay yimaadeen sheekooyin aan marka hore la ogeyn. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay waxay sheegtay isla markaana bannaanka ay soo dhigtay qatiyaadka ku aadan ama ku saabsan waxyaala ay qarinaysay, arrimo sir ah oo ay qarinaysay ayaa jira. Arrimaha sirta ah ee dowladda Sacuudigu ay qarisay ama sida aadka u xooggan u qarisay waxa weeye runtiina muujinaya in ay jirtay waxyaalo badan oo Sacuudigu uu odaytinimo ka sameynayay damage-ka waddankooda gaadhay. Waayo Sacuudigu waxay xakameeyeen in dadku ay faafiyaan wararka ku saabsan dagaaladii weerar lagu soo qaaday. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay sheegtay in sir ay qarinaysay ugu dambeyntii runtu halkan taalo. Dagaalku xitaa hadduu dhammaaday ama uu saa ku dhammaado oo wadahadallada Islamabad ee dabashara qiimo badan barnaamijka qaybta damaad si wacan ugu maqli doontaan qolo walba kaararka intay gacanta ku hayso barnaamijka labaad baad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah markaa waxyaalaha ay Sacuudiga gabdhaha ay sheegayaan xataa hadduu dagaalku dhammaado inaysan suurtagal ahayn in si degdega looga soo kabto. Sacuudigu waxa ay markii ugu horreysay ay sii daayeen warbixin lagu tilmaamay mid ay aad iyo aad u qarinayeen oo dhinaca wax soo saarka shidaalka. Boqortooyada Sacuudi Arabiya wasaaradda tamarta waxay sheegtay in xaruntii gaaska iyo wax soo saarka ee shidaalka gaar ahaan xarumihii tuumbooyinka shidaalka qaadi jiray, terminaliskii, meelihii laga dhoofi jiray, dhabooyinkii iyo waddooyinkii laga dhoofi jiray oo ay ku jiraan hadday tahay dabcan dekedihii iyo hadday tahay xarumihii ay dhibaato aad u xooggan ay gaadhay. Sidoo kalena xarumihii ay sheegeen qaarkood inay yihiin kuwii kaydka storageski ama tankskii waaweynaa, tankiyadii waaweynaa ee loogu talagalay in shidaalka laga buuxiyo iyagana ay butaaceen oo dhibaatoobeen. Sacuudigu dhinaca kale waxay sheegeen in xarun ka mid a xarumihii ugu muhiimsanaa ee loo yaqaanay waqooyi bari the east west pipelinekii ama tuumbadii dhinaca magaceeda waxaa loo yaqaanaa waqooyi bari loo yaqaanay in iyaduna dhaawac aad u xooggan ay gaadhay. Mid ka mid ah xarumaha lifelineka loo yaqaanay ay ahaayeen muhiimka u ahaa markay noqoto dhinaca shidaalka. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay sheegtay in ay sidoo kale jiraan in ay Sacuudi kaliya aysan dhibaatoobi doonin ee the global energy marketka ama suuqa tabarta ee caalamka oo dhan uu xiriiri doono. Sacuudi Arabiya dhinaca kale waxay sheegtay in ay jirtaan xarumo kale oo la soo weeraray sida laajiligeed. Sacuudigu waxay sheegeen in ayagoo ku dhowaad 2 milyan in ka badan oo shidaal maalintii soo saari jiray 700,000 inay kusoo koobi doonaan. Xaruntii loo yaqaanay Manifa oo iyaduna ahayd xarunta wax soo saarka ugu weyn ayaa la sheegay iyadana in dhaawac weyn soo gaadhay taasoo gebi ahaanba 300,000 oo foosto maalintii ay hoos u dhici doonto. Sacuudigu sirtan haddaba hadeerta muxuu ugu soo beegay eesh qiyaasak wuxuu ugu soo beegay Sacuudiga mas'uuliyad ayaa ka saarneed dhinaca suuqa wata koobaad talabaadna cadaadis baa haystay cadaadiskan ka horreeyna Mareykanku ma uusan doonayn Sacuudigu inuu shaaciyo in dhibaatooyin aad u xooggan oo dhinaca wax soo saarka shidaalka ah ay la soo gudboonaatay maadaama ay yihiin dalka ugu weyn ee shidaalka adduunka soo saara dhinaca productionka waddanka ugu ballaaran waayo wax soo saarka baa laga hadlaya. Markii hore productionka iyo kaydka labadaba adduunka iyaga ugu weynaa laakiin sadeerto Mareykanka ayaa la yiraahdaa wax ka kayd weyn laakiin wax soo saarka wali ayaga number 1 adduunka ka sida laajligeed Sacuudigu waxaa la sheegay taa daraadeed inay dib u dhigteen oo ay dib u waxeen taas waxaa ka sii daran marka tu kale oo ku saabsan mas'uuliyad suuqa ka saarnay oo ahayd inaysan suuqa dadku aysan salbabixin aysan gabi ahaanba suuqa uusan burburin. Sacuudigu waxay isku dayeen in dhinacan badda cas ay aad shidaalka u soo mariyaan laakiin hadda run gaadhay Sacuudiga si aan xisaabtan iyo liability uga carara inay mas'uuliyad hadhowta ay qaadaan waa inay sii sheegaan waxa xumaaday oo aan loo maleynin ilaa hadeerto waa la heshii doonaa inaan loo maleynin oo lagu eedeen oo la dhihin shidaalka uga soo saari weyday inay ciladii sheegaan. Marka ma la ogaa arrimahan inay dhaawacyadan ay jiraan waa la ogaa laakiin se assessmentiga dowladda Sacuudiga waa dowlad aad iyo aad taf u ah markay noqoto dhinaca amniga sida daraadeed dad badan galaangalkooda looma ogolaan xagga warbaahintuna way kooban tahay warbaahinta ka hadli kartaa waa arrinta taataaba karta laakiin hadeerto iyagaa soo faagay oo soo sheegay tan markaa runtii waxay muujinaysaa dagaalka bariga dhexe ka dhacay in uu yahay weli wax yar in laga shaaciyey. Waxaa kaloo jira xogo badan oo maalin walba soo bixi doona oo barnaamijka warwareed ku ballan qaadi doona salgiyadii Mareykanka maxaa nool maxaa hadhay ciidamada maxaa dhibaatay soo gaadhay hubka iyo diyaaradaha tiradooda saxda ah arrimaha dadka Mareykanka iyo dadka bariga dhexe intaba laga qariyay barnaamijka warwareed baad ku ogaa doontaan daawashana.